waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarligii wax ugu qabo wana lama huraane hagarligii wax ugu qabo antiyay macaan waa migaan hoy laga odhane helayo antiyay macaan waa migaan hoy laga odhane helayo antiyay macaan waa migaan hoy laga odhane haye بسم الله الرحمن الرحيم أنت وحن كسرنا قبل كمدك ما أنت ربك يا نوداي يا نوبحي وحن قرنا جيتك اللي يراد جدة أما يعبتها برواقداس يا إلهي حنها روسيتها وحلا يسكو قرحي أردن وحن ملايين يسقى على قسم إياه وأن معدا إلهي نسيي معدا إنه كنا ولانه كل كنا إنه كفى إذا سنه شدالك يذهبك dadku ay haystaan waxa ka qaalisan xoolaha inuu haysano geela iyo looda iyo ariga iyaguna waxay ku nool yihiin deegaanka haddaynan ilaashan nolol heli mayno geed beere waa nolol beere dhirtaan aynu ku noolnahay waa geedkii gudda ah oo yicibtu ka baxaysay deegaankeena inaynu ilaalino dhirta jarideeda iyo xaalufka inaynu ka hortagno qofkii geed ina ka gooyo nolosheena buu gooyay waa inaynu la dirirnaa qof walba inaga ka midana waa inuu geed beeraa dayr baaliya waa kamashinka markii ay xilliga ay ugu fiican tahay oo subagu soo go'o weeye xilliga kan waa xilli aan laga sheekayn karinin hadda waa isu kay saarantahay waad u jeedaan yicibkii iyo ciirtii iyo dhaydii iyo garoorkii iyo barbaartii iyo dhalinyaradii oo maanta isoo booqatay waa isu kay saaran tahay wadankeena waxa yaala nimcadaas aad u jeedaan waxa weeye yicibku waa geed xilli kasta oo sanad kasta baxa waxa la gurtaa hadda waa gees baa la yiraahdaa yicibkan hor yaala gees baa la yiraahdaa geeskan waa la dhilahayaa saan baa loo dhilahayaa markii saa loo dhilo waxa la yiraahdaa kalmoon baa la yiraahdaa geedka hadda waxa weeye uur guduud baa la dhahaa waa guduudan yahay markii saa la dhawaa la qalajinayaa markuu qalalo waa la dibaayo waxa lagu dibaa qoryo iyo dab baa lagu dibaa waa la solaa markaasuu qacdaha wax ka macaan lama fuud iyo fadhi iyo cibeed la isku waabaa la yiri fadhi iyo fuud iyo cibeed la isku waabaa la yiri waa macaan waa fitamiin inta ku jidha fitamiino wax la soo koobi kara ma ahan sida u maqasheen ba mindha dadka qaarkiis waa ogyihiin waa maqleen qof fadhiya uma yimaado waa la doonaa hadda anigu intaan soo guray oo halkaas aan ku daadsaday baan haddana ciirtaydii lulanahayaa waxa weeye dadka tahriibahaya dadka dibadaha looga yeerayo war wadankeenu waa barwaaqo waa muxuu haytooneen wadan aan la heli karinin wax kasta oo ku yaala waa nimco ilaahayna siiyey weeye dadka beenta loogu yeerahayo oo gaalada loogu yeerayo oo qaraxa iyo ismiidaaminta loogu yeerayo wadankeenu waa hodan wadankeenu waa barwaaqo ilaahay haydiin soo jeediyo wadankeena waa qaracanay war waxaan aan haysano iimaanka Allah idinku sugo irsaaqadana Allah idin fidiyo soo noqda imaada subagiban meelan ku shubna laana yicibkiban meelan ku shubna laana mirihiban meelan ku shubna laana lacagtii oo wadankeeni dadkii dibadaha jiray baa soo noqday geeri bay gateen arigi bay gateen beerihi bay samaysteen barwaaqa sooran baan ku jirnaa maxaa idin waalay waxa weeye halkaan waa Soomaaliya waa Puntland waa deegaanka ciid la yiraahdo ciid ay ciyaal korisi alla yaa ceelal ka qoda barwaaqada hadda taala waad u jeedaan garoorka iyo dhayda iyo yicibka iyo hilibka shiilan oo meel walba qotama iyo digsiyaasha naga ag muuqda iyo deed wax la soo koobi kara ma ahan de walaalayaal iyo hooyooyin imaadaan idin leena hadda waxaan lulanayaa ciirta waa loo heesaa waxaan hees lahayn caalamka ma jiraan nabaayo beesheenu waa beele ceebeede yaan subagalay beedeene oo soo baxlay oraane hayay bullooy baxburbax nabaayo beesheenu waa beele ceebeede furfuro furweyn buuxi aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Faadimo Xuseen Cilmi waxaan joognaa halkan waa Soomaaliya wadankeeni hooyo
ciideennii hooyo iyo dalkeennii baan joognaa. waddankeenu waa barwaaqo sida aad u arkaysaanba. waxaan haysanaa mirihii oo ka baxay geedka yicibta la yiraahdo. waxaa la yiraahdaa yicib baa la dhahaa miraha kan. goosaygii geedkan la yiraahdo hohobta baa ka baxda, mareerka ka baxa. dhulkeenu waa dhul aad u barwaaqaysan. ciideennaan gaduudana waa ciid aad u fiican. ciidan waxaa la yiri ciid gaduudan oo gogol doonahayn waa waxa dhulkeena u gaaraho laynagu gartee. haddii aad maqasheen heestaas waxa weeye waxay ka turjumaysaa waddankan anagu hadda joogno oo ciidda ah. gogol la'aan baa halkaas seexan kartaa, wax wasakh kaama soo raacayaan. waxaa Soomaaliya leedahay khayraad aad u wanaagsan. waxaanu leenahay beerihii, waxaanu leenahay badii oo ka kalluumaysanayno. dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay joogaan waddankooda, kii xeebta geli lahaa oo kalluumaysan lahaa, kuwii beerahooda falan lahaa, kuwii geelooda iyo arigooda dhaqan lahaa, kuwii sidan oo kaleeto mirahooda waddanka hooyo ka soo guran lahaa oo dalkooda eegi lahaa oo mustaqbalkooda iyo future-kooda iyo ilmahooda iyo waalidkooda intaba ka fakari lahaa ayay weeyaan dhalinyaradu. waana tiirka bulshadeenu ay maaragtay ku tiirsan tahay. waxaan uga baaqaynaa inay iska joojiyaan dhalinyaradu tahriibta iyo maxaa la yiraahdaa xisbiga. diinteenu waa islaam, dalkeenuna waa Soomaaliya, waa dal wanaagsan, wax walba leeyahay dhulkeena. waana ku qanacsanahay aniga haddii la yiraahdo dibadda lagu kaxay ama dalsha Itoobiya inta noo jirta ama Kenya inta noo jirta midna ma aadan, waayo dalkayga waa ku qanacsanahay. alxamdulillah ciidaasaan jooga, waan cunaynaa, waan cabaynaa, waan xoolaheennii baan dhaqanaynaa, arigeennii, lo'deennii, geeleennii, miraheennii, waddankeennii oo nabada waa joognaa. baahi nama cayrinayso, nabadgelyo darro nama cayrinayso. alxamdulillah rabbil caalamiin xurriye aan ku noolnahay. calankeenii baa saas noogu babanaya buluuga ahaa. hore baa waxaa ahayd maxaa la yiraahdaa calankeenu waa calan lagu faano. Soomaali haddaan nahay waxaan nahay dad isku diina, isku afa, isku midab ah oo isku jinsiyada. waxa weeyaan calankeenana waxa weeyaan cirkaasa laga matalay. waxaa la yiri buluuglow calankayaga baylah uma ogolin, boor inuu taabta iyo beecs uma ogolin, beenlow iyo tuug inuu biisho uma ogolin, kuman baxsiya kuman bir laba bursayn u rida, banaanka kun baa jiro baara waxa dahsoon, badda kun baa joogta cadowgiisa boqonta jira, kun baa ku soo barbaaraysa bara tacliin. midkaan la bedelin Soomaaliyeed baa sameeyay waa alindi qof Soomaaliyeed baa sameeyay gacantiisa ku sameeyay. Soomaaliya lagu sameeyay miraha aan quranayno waa mira ciideena hodanka ka baxay. hodan baynu nahay, qani baynu nahay, waa isku filannahay. uma baahan wax dibadda leeno kaga keeno. waxaynu xiranayno, waxaynu cunanayno. geedkan mar waa daawo, mar waa dugsi, mar waa har, mar waa hoy, mar waa hu, mar waa wax walba, mar waa dawo, mar walba marka waxa way isaga ku noolaanayna. waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay aragto risiqa iyo barwaaqada iyo waxa dalkooda yaala inay aragto. waxa ay u hanqaltaagayso oo iyadu ay shuqulka ku lahayna inay iska dayso. in qof walba fiiriyo dalkiisa iyo dadkiisa waxa yaala. waxaanu haddaan Soomaalinahay haysanaa xoolaha Ilaahayna siiyay, ciid baa Ilaahayna siiyay, maxaa dekada Ilaahayna siiyay, dunya Ilaahayna siiyay. marka waxa laga rabaa ummadda dhalinyarada tagaysa ee ka tahriibaysa iyo dadka la dibadda u socdaayo. anigu waxaan noqonayaa diaspora, lacag baan doonayaa qof walba inuu arko dalkiisa waxa yaala. dalkayaga waxa yaala yicibtaas ugu yar. yicibtaas waxa weeye qof kasta oo dalka jooga wuxuu maalintii soo guran karaa 2 kiish ama 3 kiish markii meeshu aad ugu ay u yicib badan tahay. markay u yadhahay kiish buu soo guri karaa. kiishku waa $100. waxa dhulkayaga yaala miraha hohobta. waxa weeye markii la guro qadaca waxa la siiyaa $2. waxaan jabsanaa malabka. markii aan dhirta la shiilo intaas laga guri karaa. dhirtayadu waxay leedahay geedka la dhaho goosayga, mirihiisa reero dhan baa maalin ku cuntayn kara oo ku qadi kara. waxaa la rabaa Soomaalidu inay aragto waxa dalkeeda iyo dadkeeda yaala, inayan u qaalinin dal kale iyo dad kale wax ka jira. waxaa la yiri qof kastaaba dalkiisa inuu ka magoolsado waxa yaala, inuu fahmo baan dhalinyarada ugu baaqaynaa. waa odayaasha waaweyn ee xoolo dhaqatada gobolka Mudug ku nool
gaar ahaan wuxuu ku nool yahay gobolka mid soonaha ka mid oo ciid meesha la yiraahdo ciid buu ku nool yahay meesha ay ka baxda gaar ahaan geedka la yiraahdo jicibta oo qaaliga ah oo Soomaalidu meel walba ay joogto kan jooga koonfur iyo kan jooga bariga Soomaaliya iyo kan jooga waqooyiga Soomaaliya ay u yaqaanaan fadhi iyo fiidcib isku waa geedkaas meeshu ka baxaa waa meesha ciid la yiraahdo waxaana ka tirsan tahay gobolka Mudug waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan caalamka ka ibinayna tusaynaa u sheegaynaa gaar ahaan ummadda Soomaaliya u sheegaynaa fahansiinaynaa inuu lukeen waxa uu leeyahay khayraad aad u badan waxa kamid ah waxa weeyaan mirihiyo noocyo badan oo halkan aan ku soo koobi karin hadda waxaan ag joogaa jicibtii waxaan ag joogaa cuntaradii waxaan ag joogaa hilibkii oo qalan oo idihii riyale waxaan ag joogaa ciirtii oo la lulayo waxaan ag joogaa caanihii geela waxaan ag joogaa caanihii ariga halka waxa daaqay arigii halka waxa daaqay idihii halka waxa daaqay geeli jicibtii hadda waxa weeyaan daqiiqad bacdi waan aad soo gurayaa waxaan hadda ka hadlayaa dhaqanka hadda gabdhuhu ay ka soo sheekeeyeen ma sha Allah maanta anagoo fadhina gobolka Mudug meel kamid ah oo dhex fadhina caanihii ciirtii iyo cibkii hilibkii ma sha Allah wax aan meesha lagu soo koobi karin waxa weeye waxa ku jirna nimcaan caadi ahayn ciirtii aan loolayno caanihii horyaal dhirtii oo hortaal miraheedii hayo kale faruurtii mareerkii gamashaagi qurciyo hadda aan hoos fadhino asaguna nacfi badan dunyada ku qabto dadkuna u harsado ma sha Allah man leenahay ma sha Allah waxa weeye waxaan oran lahaa dhalinyarada inuu dalka hadda ka tagaysa inay dalkooda ka taginin oo ay ka bixin oo ay ka gurtaan nacfiga yaala waxaan oran lahaa maanta halkii nin oo maanta bixi lahaayo aad lahaa dibadda hadduu gurto kiishi ciba ama kiishi mira ah ama hal caago caana oo maanta neef geela ka Soomaalo wuxuu ka helayaa nacfi badan kiishkii cibka $100 buu ka helayaa kan miraha dhafaruurta wuxuu ka helayaa sidoo kale caagada caanaha ah waxa laga yaabaa inuu ka helo maal nololeedkiisii ma sha Allah man leeyahay dalka iyagii baan joognaa waan u hilownay in badan baan qax soo marnay haddana nasteexay barwaaqaan ku jirnaa ma sha Allah waxa weeyaan cibta tan waxay leedahay nacfi badan oo aan la koobi karinin daaway leedahay waxtar bay leedahay waxay leedahay kale waxa la yiraahdo بروتين بيلاده هذا الريرك عاو waxa laga yaabaa qoys ahaan karsa reerkaas inuu tayadiisu ay ma sha Allah noqonayso waa la soo koobi karin waxa laga yaqaan loo yaqaan avocado dalal badan oo Afrikaan dhaqaalahooda wuxuu ku tirsan yahay geedkan mar waa sharaab mar waa daawo mar waxa laga sameeyaa saliid mar waxa laga sameeyaa alaabta la isku qurxiyo nooc walba dhulkeenu waxa barwaaqada ka buuxda inaynu ka faa'iideysano ayaa loo baahan yahay Ilaahay wuxuu ina siiyay dal aynaan uusan ugu talagalin inaynu ku gaajoono aynu ku baahi baxno dhalinta waxaan ugu baaqaynaa haddaad timaadaan oo iska gurataan beer ma aha qof leeyahay haddaad dalka dibadiisa u dhoofisaan waa lacag adag haddaad ku noolaataan oo warshada ka samaysataanna waxa weeye waxay noqonaysaan dhaqaale wuxuu noqonayaa aad iyo aad u ballaaran waxaan leenahay intaan ka tahriibi lahayn dalka aynu leenahay oo barwaaqada ka buuxda aynu joogno cadawga aynu ka ilaashanno isaga aynu ku dhaqanno aynu jeclaanno aynu ku noolaanno aynu degno Hoy laga